بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكبرنو ويدينتن What is an auto insurance? Auto insurance وحاسدو كلا لو يقانا car insurance, vehicle insurance هداد مقشد واسكمت. هدابا وحالو قيحي كرا auto insurance إني تهي هشيس كدحية معميلك اللعيميي إيا شركة عيمسك. وحانا معميلك اللعيمينيا haddii ay dhacdo in gaariga uu shil galo ama la xado waxa uu macmiilka helayaa magdhow haddii ay soo baxdo in dhibka qabsaday macmiilka uu ka mid yahay walxaha laga caymiyey. sidoo kale heshiiska caymiska gaariga waxa uu daboolayaa qofka gaariga iska leh iyo xubnaha qoyska iyo welibana haddii qof kale uu gaarigaaga kaxaysto adoo ogol ama uu gaariga ku wato ogolaanshiyahaaga kadibna uu shil galo magdhowga waxaa bixinaya shirkadda caymiska waa haddii uu gaarigaaga soo gaaro dhibaato. haddaba heshiiska caymiska gaariga waxa uu sidoo kale daboolaa magdhowyadan sida 1 haddii ay dhacdo in gaarigaaga ama gaariga qofka kale uu wato uu dhib soo gaaro kadib markii aad isku dhacdeen. 2 haddii uu gaarigaaga hanti islaameed ama dhaawac geysto. 3 lacagta daawada haddii uu shil jiro iyo lacagta aaska haddii dhimasho ay jirto waxaa intaa oo dhan bixinaysa shirkadda caymiska. sidoo kale qofka macmiilka u ah shirkadda caymiska ee haysta heshiiska caymiska gaariga waxa uu ku darsan karaa caymisyo dheeraad ah kuwaas oo kale ah labadan hortiina ka muuqata ayaa ka mid ah oo aan mid mid uga hadlayno. haddaan ku hormarno uninsured motorist coverage waa caymis loogu talagalay in qofka macmiilka ah looga ilaaliyo dhibaatada kaga imaan karta dadka kale ee wata gaariyaasha aanan caymiska haysanin oo haddii ay dhacdo in macmiilka gaarigiisa uu shil galo ayna soo baxdo in qofkaa kale uunan haysan caymis waxaa gaariga ku hagaajinaya shirkadda caymiska. sidoo kale uninsured motorist coverage waxaa soo gala gaari inta kugu dhaca kaa carara hit and run haddaba dhibkaa ku soo gaaray waxaad magdhow ku leedahay shirkadda caymiska. qaybta labaad ee caymiska dheeraadka ah waxaa loo yaqaanaa under insured motorist coverage waana in laga caymiyo dhibaatada kaaga imaan karta dadka kale ee haysta caymis gaari balse aanan ku siin karin magdhow buuxa haddii ay dhibaato ku geystaan oo waxay bixin karaan magdhow ka hooseeya dhibka ku soo gaaray. si kale haddaan u dhigno waa dad haysta caymis balse magdhowga ay bixin karaan waxa uu ka hooseeyaa dhibka ku soo gaaray. aan dhahno dhibka ku soo gaaray waxaa lagu qiimeeyey $2,000 balse waxa ay bixin karaan $800. haddaba $1,200 ee soo hartay waxaa ku siinaysa shirkadda caymiska. caymiskaas dheeraadka ah waxaa loo yaqaanaa under insured motorist. haddaan koobno uninsured waa dhib kaaga imaaday qof aanan caymis haysanin halka under insured ay tahay dhib kaaga imaaday qof haysta caymis balse bixin kara magdhow yar marka loo fiiriyo dhibka ku soo gaaray. haddii aad labadan arrin la kulantid ama midkood waxaad magdhow ku leedahay shirkadda caymiska. fiiro gooni ah sidii aan horay u soo sheegnay shirkadda caymiska waxa ay magdhow bixisaa kadib marka ay baaris samayso lana soo xaqiijiyo in dhibka qabsaday macmiilka ay ka mid tahay walxihii laga caymiyey. sidoo kale lacagta magdhowga ah waxa ay leedahay xad ee ma ahan sidii jeeg furan oo lacagtii la rabo lagu qorayo. xog dheeraada oo ku saabsan qeexidda caymiska, insurance premium, deductibles, insurance claim adjuster fadlan ka dhegayso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo.